ma jiraan waxaanu ka hadlaynaa arrinta ka socota Tukaraq iyo gobolka Sool arrintaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed ay ka daashay nabadiidka ama Soomaaliyeedka Hargeysa oo halka ka soo weerartay ama taliska Hargeysa sida darteed bulshada ku nool gobolada Puntland waxaan sheegayaa ama la socodsiinayaa inay u diyaar garoobaan dagaal iyo difaac goboladooda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ku nooshaayba arrintaas waa arrin muqadas ah waa gobol aad arkaysaan oo doonaya inuu Soomaaliya ka go'o waa gobol doonaya inay si khaldan ay argagixisada u hoostigalayaan oo u dejiyaan deegaanadooda waa gobol doonaya inaan Soomaaliya cagdigin oo midoobin sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan ugu baaqayaa in gobolada Soomaaliya ay isu taagaan oo difaacaan bulshada Puntland waxaa laga rabaa inay gobolka Sool ay soo celiyaan sharaftiisii jiritaankiisii xornimadiisii iyo deganaanshihiisii waa maasantahay Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay maatada iyo birimageydada ay dhowraan maxaabiista ay qabtaanna ay ula dhaqmaan sidii caadada u ahayd reer Puntland oo horeyba cadawga ku soo duulay ula dhaqmi jireen